Wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa Kulmiye Show. Kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta dunida oo aynu daaha kaga rogi doono Ruushka oo Ukraine ka helay shaybaaro dhanka biology-ga ah oo Mareykanku lahaa kuna andacooday in lagu sameynayay virus halis ah oo lagu faafin lahaa Ruushka iyada oo loo marayo shimbiraha iyo fiidmeerta. Mareykanka oo qiray xarumahan baaritaan ee Ukraine ugu yaala balse beeniye eedeynta iyo sirdoonka dowladahan oo tartan xoogan ugu jira gacan ku qabashada xarumaha baaritaan. Mar kale daawadayaal soo dhawaada. Daawada fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe inoo saar, sidoo kale furo gambaleelka si aad u hesho wararkeena ugu dambeeyay. Waxaan kaloo kaa codsanaynaa in aad barnaamijka noo laagareyso si uu dad badan u gaaro. Mahadsanid. Intan haddii aad noo samaysay waan kaaga mahadcelinaynaa. Afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dokumentiyada Ruushka ka helay Ukraine ay muujinayaan in ulajeedka cilmi baarista biology ee Mareykanku ku maalgeliyay Ukraine ay tahay in la abuuro hanaan qarsoodi ah oo faafitaanka cudurrada dilaaga ah. Waxaana uu ku dhawaaqay in la qabqabtay shimbiro lambaro leh. Waxa uu tilmaamay in Ruushku dhowaan daabici doono dokumentiyadan kuwaas oo ay ka heleen shaqaalaha Ukraine ee shaybaaradaasi ka howlgalayeen. Waxa uu sheegay in caddeyntan ay muujinayso in Mareykanka ka shaqeynayeen cudurrada kala duwan ee shimbiraha, fiidmeerta iyo weliba sidoo kale xamaalatada kale loo dhiibo. Wakaaladda wararka ee Ruushka oo soo xiganaysa wasaaradda difaaca Ruushka ayaa iyana baahisay in shimbiro badan oo laga sii daayay shaybaarada biology-ga ee Ukraine ku yaala lagu qabtay gobollo ka mid ah waddanka Ruushka. Waxaa kale oo ay soo xigatay wakaaladda taliyaha ciidamada Ruushka u qaabilsan difaaca shucaaca kiimikaalka iyo biology-ga. Afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegay in shaybaarada Mareykanka ee ku kala yaala Georgia iyo Ukraine ay ka fuliyeen mashruuc u dhow xuduudaha Ruushka kaasoo fiidmeerta loo adeegsanayay inay qaadaan hubka biology-ga. Sargaalkan ayaa shir jaraa'id ku sheegay in aqalka gaashaandhigga Mareykanka Pentagon ay sidoo kale daneynayaan cayayaanka yaryar ee faafin kara cudurrada faafa ee khatarta ah, iyadoo falanqeyn lagu sameeyay alaab la helay ay xaqiijinayso in ka badan 140 weel ama sanduuq ay ku jiraan duulin dibadeed sida fiidmeerta iyo shilintu laga soo qaaday shaybaarada ku yaala duleedka magaalada Kharkiv ee Jamhuuriyadda Ukraine. Dhinaca kale, afhayeenka aqalka cad ayaa beenisay isla markaana been abuur ku tilmaantay hadalka Ruushka ka soo baxay ee ah eedeyntan halista cudurrada ay faafinayeen ee shaybaaradooda hubka ee Mareykanka ku leeyahay Ukraine. Waxayna cambaareysay waxay ku tilmaantay fikradda shirqoolka ee soo noqnoqotay ee saraakiisha Shiinaha iyo Ruushka soo daayaan sida ay hadalka u dhigtay. Waxa ay tilmaantay in sheegashadani ay tahay mid aan caqligal ahayn, ayna qayb ka tahay waxay ku tilmaantay warar qaldan oo Ruushku sameeyay sanadihii la soo dhaafay, iyadoo xustay in loo baahan yahay in laga digtoonaado suurtagalnimada in Ruushka uu dagaalka Ukraine u isticmaalo hubka kiimikada ama biology-ga. Dhankeeda, xogayaha arrimaha dibadda Britain ayaa TV-ga CNN u sheegtay in la hadal hayo adeegsiga kiimikada Ukraine, isla markaana Ruushka uu horay u sameeyay arrintan oo kale. Waxaana ay sheegtay in tan haddii ay dhacdo ay tahay qalad aad u weyn. Arbacadii waxa ay Ruushku Mareykanka ka dalbadeen in uu beesha caalamka sharaxaad rasmi ah ka siiyo waxa uu ku sheegay dhaqdhaqaaqa shaybaarada biology-ga iyo bakteeriyada Mareykanka ugu yaala Ukraine. Afhayeen u hadasha wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka Maria Zakharova ayaa waxa ay sheegtay in Ruushku uu si isdaba joog ah uga digay dhaqdhaqaaqyada biology Mareykanka uu ku leeyahay meelo u dhow xuduudaha Ruushka, iyada oo xustay intaasi xadgudub ku tahay heshiisyadii la wada galay. Maria ayaa intaasi raacisay in dalkeeda uu helay caddeemo muujinaya dhaqdhaqaaqa biology-ga intii lagu guda jiray howlgallada militari ee ciidamada Ruushka ka fulinayaan waddanka Ukraine. Gabadha afhayeenka u ah wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka waxa ay tiri, waxaan degdeg u soo gabagabayn doonaa howsha lagu hubinayo in shaybaarada biology ee Ukraine ee ku yaala agagaarka xuduudda Ruushka ay ahaayeen kuwa lagu horumarinayay qeybaha hubka biology-ga. Talaadadii, afhayeenka aqalka cad ee Pentagon-ka John Kirby wuxuu ku tilmaamay macluumaadka Ruushka ku saabsan barnaamijka biology-ga loo maleynayo in ay Washington taageerto ee Ukraine ku yaala been iyo waxaan macquul ahayn tahay. Dhankiisana afhayeen u hadlay madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale beeniyay in dalkiisa uu leeyahay barnaamij biology ah. Wasaaradda difaaca Ruushka bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in cilmi baaris lagu sameeyay bakteeriyada daacuunka iyo kudka laga fuliyay shaybaar biology oo ku yaala magaalada Lviv ee galbeedka Ukraine,
kaas oo qayb ka ah barnaamij biology ah oo dhanka militariga ah. goor dambe oo khamiistii ahaydna waxaa soo baxday qirashada Mareykanka ee xarumaha baaritaan ee ugu yaala Ukraine. gabadha lagu magacaabo Victoria Nolan oo u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay sheegtay inay Ukraine ugu yaalaan xarumo baaritaan oo dhanka biology-ga, laakiin aanay ku shaqo lahayn baaritaanada hubka biology, iyadoo intaasi ku dartay inay haatan ka walwalsan tahay in xarumahaasi ay ku dhacaan gacmaha militariga Ruushka, ayna halkaa ka wadaan howlo ay kala shaqaynayaan dad Ukrainian ah, kuwaas oo la doonayo in lagu soo samata bixiyo agabka muhiimka ah ee shaybaarada. madaxda kala duwan ee dalka Ruushka ayaa ka hadlay arrintan, iyadoo madaxweyne Putin uu sheegay in arrimaha shaybaarada ee ku yaala xuduudaha Ruushka ay ahaayeen kuwa lagu soo saarayay fayrusyo iyo bakteeriya gaargaar ah oo mid walba uu khuseynayay dheecaanada DNA-ga. qowmiyad kasta oo dalka Ruushka deganna loo sameynayay mid gaar ah, iyadoo sanadihii u dambeeyeyna hadalhaynta ay ahayd in cudurro badan oo dilaacay ay qayb ka ahaayeen baaritaano iyo howlgallo lagu sameeyey dhanka biology oo qarsoodi ah. TV-ga Russian Today ayaa baahiyey in ciidamada Mareykanka ay dalbadeen oo ay raadinayaan si qarsoodi ahna ugu holjireen inay helaan dheecaanada DNA-ga ee cirqyada ay qaybo ka mid ah dadweynaha ku nool dalka Ruushka. dowladda Shiinaha oo qadka soo gashay waxa ay sheegtay in Mareykanka ay leeyihiin ilaa 336 xarumood oo dhanka baaritaanada ah oo ku kala yaala 30 dowladood, iyadoo Ukraine kaligeed ay ugu yaalaan 26 ka mid ah xarumaha baaritaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinuhu wuxuu sheegay inay lama huraan tahay in Mareykanka ay soo gudbiyaan warbixin dhammaystiran oo ku saabsan dhaqdhaqaaqeeda dhanka militariga ee ugu yaala gudaha waddankeeda iyo dibadda, waana inay aqbashaa baaritaano ay ku sameeyaan dhinacyo kala duwan. barnaamijkeena xogta dunida oo aad ka daawanayseen Kulmiye Show waa naga intaas. barnaamijkan mid ka xiga intaanu ku kulmi doonno nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.